بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقرأ المختار قرأ علي برالة وهكذا كالسلام إياه دمان مدى الصوماليات قرأانكو وصولية صناعيين وحانا إذا الله إياه رمضان كريم. runtii maanta waxaan soo gaadhay war aad iyo aad u naxdin badan oo qulubtayada wax yeelay kaasoo ku aadan mashaashaqada ka dhacday deegaanka Dabardolood iyo nawaaxigeeda labada qoys ee walaalaha ah ay maanta mashaashaqadaasi ku dhex martay taasoo keentay dhimasho iyo dhaawacba. awalan waxaan uga tacsideynayaa intii dhimatay aan ilaahay nooga baryaa inuu ilaahay naxariistiisa siiyo intii ay ka tageena inuu ilaahay samriyo iimaanka siiyo inta dhaawacana ilaahay waxaan uga baryaa inuu ilaahay u boogadhayo oo caafimaadkoodii u soo celiyo oo ilaahay caafimaad sare siiyo. inta markaan ka soo gudbo runtii waa arrin aad iyo aad noo naxdin gelisay iyadoo maanta bil Ramadaan lagu jiro oo wax badan la iska xaaraantimeeyay oo shaydaankii oo dhan la xirxiray oo ilaahay naga xiray iridihii naarta oo yiri warfa bishan fadligeeda ajar iyo khayr shaqaysta oo wax kale ha yeelina in aynu maanta u jeesano waxa ugu weyn ilaahay wax xaaraantimeeyay oo ah dhiig kale in la daadiyo oo mid muslim iyo mid gaalba inta la daadiyo la xaaraantimeeyay ayaynu maanta u bareernay inaynu xaaraan galno dhiig walaalkeena. marka arrintaasi runtii arrin aad iyo aad looga naxaweeye waa arrin aad looga xumaado waa arrin aan marnaba dee sabab loo helaynin in maanta bisha Ramadaan iyo mar kastaba inaynu inagu ahaano kuwii guryaheenu xabad iyo dhagar aynu isku soo jeedino. marka waxaan ugu baaqayaa inta mashaqadaas dhex taalo inay xabada iyo joojiyaan wax kasta oo dib keenaya dibtu intii naga dhacdayna halka uu ka ekaato inta kalena lagu dhameeyo wada hadal iyo xaajood wax kasta oo wada hadal lagu dhameyn karina dee arrintan xal uma noqonayso. ilaahayna inaynu ka xishoono weeye oo bisha Ramadaan ilaahay noogu talagalay cibaadada gaarka ah ee siyaadada ah aynu u xusno dib ugu soo laabano oo inaan ugu abaalgudin inaynu ku daadino dhiig iyadoo xaaladda iyo deegaankuba ay kulul yihiin oo biyo la'aan ay jirto oo ilaahay raxmadkiisa aan ka baryayno dee ilaahay raxmad inoo keeni maayo meel dhiig ka daadanayo. marka ay maadayaalo hala joojiyo nabadana hala qaato tolka iyo dadweynaha iyo cuqaasha iyo culimadana oo intiina garboodka ahna waxaan uga codsanayaa iyaguna inay si degdeg ah hawshaas waxay ka qaban karaan kalaankooda ay ka qayb qaataan oo ay dadka u gurmadaan ismaagaya oo maanta isdhamaynaya intay ka gaari karaan ay ka gaaraan. ilaahayna waxaan idinka baryaynaa inuu idinkana idin fudaydiyo gurmadkiinaas ilaahayna sabab uga dhigo inaan dhibaato kale naga dhicin meeshaana wax kale kusoo siyaadin shaydaan kalena ka faa'iidaysan. marka intaasaan ilaahay idinka baryayaa mashaashaqadana ilaahay inaga baryayaa inuu naga qabto halkaan inoo soo afjaro dee waana soo ducaynaynaa inta qurbaha joogta ee xaggan aan dee wax kale ku qayb qaadan karina dee ducaa maanta loo baahan yahay dadka loo wada duceeyo mashaashaqadaas iyo wax kaloo dhibaataa deegaanadaas iyo dalka oo dhanba inaysan ilaahay wax dhibaato aynagu keenin dhibta iyo kuleelka maanta yaalee abaarta laga baqayana ilaahay baan ka baryaynaa raxmadkiisa inuu na siiyo. وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.